Motivation Podcast. Hakan maanta waxaan ku sheegayaa 5 nooc ay u qaybsamaan qaabka waalidnimada iyo sida ilmaha mid walba hadhow toolo u saameeyo markuu weynaado wuxuu noqdo. Midda koowaad waxaa la yiraahdaa authoritarian parenting. Waxa weyn in ilmaha sharci adag la siiyo, si adag loola dhaqmo, sharciga uu raaco, rules guriga loo sameeyo, uu wax maqlo, hadduu wax maqlo waayo la ciqaabo. Mataqaanaa dabeetana ilmuhu marka dambe uu noqdo okay imika dhibaato igu dhacaysa amba lay dilayaan amba lay canaananaya marka waalidkii uu maqlayaa dadkii uu maqlayaa wuxuu ku badbaadaya in dadku say doonayaan uu sameeyo. Hadhow toolo wuxuu noqonayaa qof aan wuxuu doonaya garanahay waxay dadku doonayaan sameeya. Mataqaanaa waxa sharci tusaalahan hadduu wax barasho galaan wuxuu doonayay isagoo baranin wuxuu noqonayaa qof bulshadu waxay doonayso noqda sidii bulshadu doonayso u ekaada. Nooca labaad ee waalidnimada ayaa waxaa la yiraahdaa permissive parenting. Waxa weeyaan waa waalid aan iyagoo aan sharciya lahayn oo rules lahayn ilmuhu wuxuu doonayo sameeyaa sida doonayo yeelaa ice cream ku quraacda ku qadeeya ku casheeya doono wax alaaliya wuxuu doonayo sameeyaa. In waalidkan ilmihiisa way jecel yihiin jacayl darteed bay u dooldoolinayaan ay u kolkolinayaan ay waxay doonayaan oo dhan ugu yeelayaan. Ilmahani markuu weynaado hadaba qaabkan loo koriyay sidee ayuu noqonayaa. Wuxuu noqonayaa ilmo aan sharciga raacin, ilmo aan sharciga u hoggaansamin, ilmo aan wax qabtan lahayn, ilmo aan limitkiisa aqoonin, ilmo aan dadka la dhaqmi karin, ilmo wixiisa wax dadka kale iskaga dhex khaldan yihiin. Wuxuu noqonayaa qof aan control noloshiisa aan lahayn, wuxuu noqonayaa qof aan ixtiraamin ama aan garan karin dadka kala dareenkooda oo macnaha inconsiderate ah oo dadka u xadgudbaya oo aan garanayn dhibaatada u geysanayo ayuu noqonayaa qofkani hadhow markuu weynaado. Qaabka saddexaad ee waalidnimada ayaa waxaan odhan karnaa waa ka loo yaqaano authoritative parenting oo ah inuu waalidkan ilmihiisa jecel yahay inuu xoriyad siiyo, inuu dhageysto, inuu fikirkiisa dhageysto, in xoriyadiisa loo sii daayo hase yeeshee gacanta lagu hayo oo tusaale ahaan video kala dhamaanta TV-ga axadoo kaliya daawanaysa ice cream axadoo kaliya cunaysa aanu sidii kii hore ahayn wuxuu doono yeelaya laakiin waa ilmo xoriyad leh waa ilmo marka rules loo sameynayo amba sharciga loo sameynayo lagala hadlo loo sharaxa sababta iyo cawaaqib xumada ka dhalanaysa hadduu raaci waayo go'aan kala qaadanayo dhan qaybka ah in xoriyad leh laakiin xoriyad control ayuu leeyahay. Ixtiraam ayuu qofkani ku nool yahay aabihii iyo hooyadii waa ixtiraamay asagana waa la ixtiraama. Ilmahan markuu weynaado waa kan ugu fiican waxa uu yaqaanaa waxa ku fiican yahay waxa uu ku xun yahay limitkiisa halkuu ku joogsanayo iyo ixtiraamka dadka sida uu ixtiraamayo iyo siduu naftiisa isagu ixtiraam ugu dalban lahaa. Qaabka afraad ee waalidnimada ayaa ah neglectful parenting waxa la yiraahdo amba waalidka dayacan oo ilmihiisa dayacay aan ka warhaynin qofkan amba ilmahani waxa loola dhaqmay qaab hadduu wax fiican sameeyo hadduu wax xun sameeyo tanaan laga warhaynin hadduu wax ku fiican hadduu wax ku xun yahay laga warhayn hadduu wax sawiro hadduu wax qoro hadduu wax ka shaqeeyo inta midna aan attention iyo mataqaanaa jacayl ku filan midnaba aan la siinahaynin in ilmihii maadaama fiiro gaarana loo lahayn jacaylna aan la siinahayn waxa uu noqonayaa qof aan dan ka lahayn wuxuu ogaan inaan dan laga lahayn wuxuu qabanaya kadibna wuxuu ku koraya noqonayaa qof aaminsan inaan dan laga lahayn naftiisa saa darteed wuxuu noqonayaa qof aan isku kalsoonayn qof aan meeshu doonaya gaadhin qof aan nolosha u dagaalamin qof nolosha ka quusta isagoo yar oo u arka hadduu meel gaadhiyo haddaanu meel gaadhina isku mid tahay saa darteed maskaxdiisu waxay ku koraysaa inuu noqdo mid aad u kalsooni daran. Kan shanaad ee u dambeeya qaabka waalidnimada ayaa ah ka loo yaqaano helicopter parenting amba nooca loo yaqaano helicopter parentingka oo ah mid si xad dhaaf ah ugu lug leh ilmaha noloshiisii jacayl fara badan u qaba ilmihiisa ilaalinaya dhibaatooyinka hareerihiisa ayaa loo dhanka qaadaya wax kastoo kasoo horbaxay isagoo xalinaya ilmihiisa nolosha u fudaydinaya oo aad iyo aad u jecel. Ilmahana markuu weynaado sidee buu noqonayaa wuxuu noqonayaa qof aan isagu aan gaari karin mataqaanaa xallin karin noloshiisa go'aan gaari karin ilmo dhibaato kastoo ka hortimi uu waalidku xalinayay wax kastoo u fudaydinayay wixii dhibaba uu ka hor qaadayay oo aan baran qaabka mataqaanaa wax loo xaliyo iyo sida loo hadlo iyo sida dadka loola dhaqmo toona. Saa darteed kalgacaylka xad dhaafka ah ee wax walba loo fudaydinayay hadhow toona nolosha caqabad ayuu ku noqdaa. Marka haddeen ku noqono kii labaad ee waalidnimada ayaa mar walba ugu fiican.